war qoraal ah oo goordhow ka soo baxay beesha caalamka ayaa laga hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu bilaabay saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay aad ugu walacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. beesha caalamka ayaana qoraalkeeda ugu baaqday saamiilayda siyaasadda in ay muujiyaan hoggaan iyadoo la tixgelinayo danta ummadda iyo in si dhaqso leh ay u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo gudagalo geedi socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan. Saaxiibadu waxay ka mahadcelinayaan dadaaladii lagu dhaqaaqay dhowaan, gaar ahaan waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku tagay Galmudug iyo Puntland. wadahadaladii dhex maray madaxda sare ee ka dhacay magaalada Garowe kaasi oo martiqaadkiisu uu lahaa madaxweynaha Puntland Siciid Dani iyo xiriiradii uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo soo gudbiyay talooyinkii ka yimid Garowe una soo gudbiyay madaxda dowladda federaalka iyo xubnaha kale ee siyaasadda. Saaxiibadu ayaa lagu yiri qoraalka waxay garwaaqsan yihiin in heshiiskii 17 Sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalka dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo labada gole ee baarlamaanka. sidoo kale waxay soo dhaweynayaan musharaxiinta badan ee u taagan xilka madaxweynenimada, inkastoo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka niyijabeen sida lagu yiri qoraalka in hanaankan uu aad uga hooseeyo doorashooyinka qof iyo cod ayaa haddana heshiiskii 17 Sebtembar wuxuu yahay ayaa lagu yiri qoraalka aasaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021 ma jiri karo dib u furid lagu sameynayo heshiiskii 17 Sebtembar ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar socda ayaa lagu yiri qoraalka. waxaa loo baahan yahay isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay in laga gaaro hirgelinta heshiiskaasi si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geedi socodkan. Tani waxay fududaynaysaa in la jaanqaado ballanqaadyadii lagu heshiiyay ee shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri. Saaxiibadu waxay soo dhaweynayaan dadaalada dardargelinta leh ee sida u dhaqsiyaha badan lagu xalinayo arrimaha taagan, laguna soo gabagabeynayo isfaham laga gaaro maalmaha soo socda si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan. saaxiibada beesha caalamka waxay ku boorinayaan ayaa lagu yiri sidoo kale qoraalka madaxda Soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee 30% ay ku yeelanayaan baarlamaanka sidii ay u ballan qaadeen heshiiskii 17 Sebtembar. saaxiibada beesha caalamka waxay mar kale ku celinayaan ayaa lagu yiri qoraalka in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshado aan la aqbali karin ay soo ifbaxaan. waxaa sidoo kale carabka lagu adkeeyay ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed oo xor ah oo furan, kaasi oo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabad ay ku soo bandhigaan aragtidooda, isla markaasna ay warbaahinta awood u leedahay inay ku shaqeyso xayiraad la'aan. ugu dambeyntii qoraalka ayaa lagu yiri waa in la joogteeyo jabigii wada hadalka iyo tanaasulka ku salaysan ee horseeda in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar si geedi socodka doorashada hore loogu sii ambaqaado. qoraalkan ayaa si wada jira waxa uu soo saaray Midowga Afrika, wadamada Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, boqortooyada midoobay ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.